magacayga Ibrahim Khallawaaye lacagtan oo dawladda Kenya lacag cusub soo bixisay oo ay yiraahdeen lacagta bedesha la bangiga marka la tago lacagti waana lagu diiday bedelkina waan ka waayne sida daraadeed dawladda waxaan ka codsanaynaa si degdeg inay lacagtan naga bedesho oo si degdeg amar la bixiyo oo bangiga lacagta dadweynaha ka bedeshaan ayaa dawladda ka codsanaynaa magacayda waa Cusmaan Xuseen Xasan oo odayalka Mandera ganacsatada kamid ah inbaas wax ma geysan karna dukaan wax kama galan karna raashin kuma iibsan karna lacagta bangi lama geyn kara bangiga hadii la geeyo waxa dhacday lagu soo celinaya ninka oo 100 kun geelo bir 3 bil loo ogolaanayo wax yar aan loo ogolaan karin dhibaato farabadan baa jirta qasaarada inama u raacna ma garanayna ganacsi ma lihin lacag meel loo dirsan kara ma lihin wax la soo iibsan kara ma lihin waxa la bilaabay xaafadaha kawaanada ay leeyihiin lacagtan kunka ma qaadanayna kii dhuxushu wada oo diiday kii oo caanaha keenay oo diiday lacagta kunka inbeesa ay diiday dukaan raashin aan laga gadan karin anaga bangiga oo diiday waxa isticmaalan waa lacagta Kenya lacag euro waxba kuma gadana lacag Ethiopia waxba kuma gadana hadii ma waan diinta reer Kenya aan nahnay dawladda waxaan ka codsanaa lacagtaas si degdeg ah loogu beddelaa haddaan la bedeli karin in lacagteeda loogu fasaxo أنا وعلي محمد عبد علي وحن كنا له مندرة جناسة مندرة أيام كمدة وحن كعوانينا لعقت كينيا أو كون كشلنا أيام نقول ديدي إن بس هذا أنتجنا ونقول ديدي إنه قالوا شو موبايل ده بنجيال كدي أنتجنا ونقول ديدي شرط وحلاقة دي أكون إلا فرو لعقت إلا بدي أيام جرتا بدي ريرميك أيام قيلنها ضد كمجالات أيام قيلنها وحلقوا ما قدن كرا ننكر رباديها وحولها كيني وسوق وحولها كيبسد جيلا أما الله أما أرجع وحلقوا يبسد العقد تكون كه العقد عيله هن إنها كسرعة أيام الديدي مجالات إنها وحلقوا يبسد أيام الديدي أكون ما يغنى ريرميجا أكون ما استعمال كران بنجينا إن العجيه بدل واد ديدي شرط واحد كده إن أكون لفرق dadweynaha dhan akoon macnihiisa ma wada yaqaanaan in yaro biicmushtar ayaa taqaana biicmushtar laftooda akoonka lacagta hadii ay dhigtaan in lagala soo baxo ma ogolo oo biri ama week kadib ay kala soo baxaan waa loo diiday waa dhigi kartaan laakiin lama bixi kartaan ayaa la yiri cadaadistaas in dhibkaas ayaa dadweynaha ayaa ku dhacay waxaan codsanaynaa dawladda Kenya in ay muddada way soo gaabiyeen muddada ay ku daraan waa codsanaynaa teeda kale dadka bangiyaalka jooga ama embeesayaalka jooga dadweynaha way cadaadinayaan cadaadiska inay ka dhaafaan maxallihi waa u sheegaynaa